Shah Rukh Khan hantidiisa waa 600 oo milyan. Jilaaga ugu taajirsan Bollywoodka waa Shah Rukh Khan oo hantidiisa yaabka leh ay tahay 600 oo milyan. Shah Rukh Khan aabihiis waxaa la dhahaa Meertaj Mohammed Khan, hooyadiina waa Lateef Fatima Khan, walaashiina Shehnaz Lala Rukh Khan. King Khan wuxuu ku dhashay bishii Nofeembar 1965 magaalada New Delhi, Hindiya. Ka hor intii aanu bilaabin xirfadda filimada heerka waxbarasho wuxuu ka soo qayb galay Hansraj College iyo Jaamacadda Delhi. Shah Rukh Khan waxaa si weyn loogu yaqaanaa boqorka Bollywood, mana ahan keliya inuu yahay atooraha ugu taajirsan ee boqor Khan wax weyn ayuu ku soo kordhiyey shineemooyinka Hindiya. Waa jilaa soo saare iyo martigeliyaha telefishinada, wuxuu si firfircoon uga soo dhex muuqday aflaanta 1988 filmkiisii u horeeyey wuxuu ahaa Fauji, welina wuu dadaalayaa ilaa iyo haatan. wuxuu ka soo muuqday in ka badan 80 filim oo Bollywood ah, wuxuuna ku guulaystay 14 Filmfare Awards oo lagu daro dhowr kale biladaha noocyada kala duwan ah. Khan waa aktaarka labaad ee ugu Filmfare Awards badan, waxaa ka horeeya oo keliya aktarka geeriyooday Allah u naxariistii Mohammed Yusuf Khan oo loo garan og yahay Dilip Kumar. Jilaagan ayaa inta badan dadka dhalinyarta ahi ay adag tahay inay gartaan, balse waxa uu ahaa jilayaasha shirkadda Bollywood ugu caasanaan 60maadkii ilaa iyo 90meeyadii. Dilip Kumar waxaa la dhashay aktarkii Nasir Khan ee dhalay jilaaga caanka ah ee Ayub Khan. Shah Rukh Khan wuxuu leeyahay qiimaha ugu sarreeyo ee jilaa kasta ee shineemooyinka Hindida. Boqor Khan wuxuu guursaday xaaskiisa Gauri Khan 1990kii. Gauri Khan waxaa dhalay Ramesh Chandra Khiber. Shah Rukh Khan iyo Gauri Khan lamaanahan waxay leeyihiin 3 carruur ah oo kale ah Aryan Khan iyo Suhana Khan. Abram Khan waxayna wada degan yihiin Mumbai, Maharashtra, Hindiya. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji, halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Qaybta labaad waxaan ku soo qadan doonaa aktaro aad loo xiseeyo si aad u ogataan hantidooda. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena fadlan nagu dhiirigeli lagtaada, channelkeenana ku soo biirsiina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.